السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعين سلام dhamaan walaalay Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waa markale walaashin xabsa shire ku soo dhawaada channelkayga hooyada maanta ayaamahan waxa waa caajisay oo wax badan ma soo duubin inta badan fursadeygana iska yaraayeen aad ayaan kaaga raali gelinayaa inaan soo daahay ani xataa ma jecli oo waxa rabaa mar walba inaan wax soo duubo laakiin haddana waxbaas iska naqanayay marka alxamdulillah waa iska fiicana adinkana waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo H pylori wax loo yaqaano inaan maqasheen aan u maleynayaa sababta uga hadlayna waxay tahay badanaa ilmaheena yararka ayaa laga sheegaa inta cunug dhakhtar geyso hooyo caloosha ay xanuunayso inuu ku dhahay dhakhtar markaa geyso ma lagu dhahay cunugaaga H pylori oo qabaa soo marka H pylori wuxuu yahay ayaa rabaa inaan u fahansiiyo hooyooyinka jecel inay ogaadaan waxyaabaha ilmahooda iyo naftooda soo wajaho marka koowaadne waxaan rabaa inaan dhaho aniga horta dhakhtar ma ihi oo hadhow haddii su'aalo ay soo weydiinaysiin maxaa la dhahay oo waxyaaba general oo aqoon guud ku saabsan waa kaaga jawaabaya laakiin dhakhtar ma ihi waxaa hooyo wax baratay oo na jecel dadka inay u faa'iideyso inta yar aqoonta ay leedahay oo aadna u jecelna akhriso ani waxyaaba badan aad u akhriyaa waxyaabaha ilmaha ku saabsan waxyaabaha hooyada ku saabsan waxyaabaha caafimaadkeena iyo nolosheena ku gadaaman aad ayaa u akhriyaa daraasooyin badan ka sameeyaa markaan dhakhtar ma ihi laakiin waxyaabaha oo nolosheena ku saabsan aad ayaa u baaraa saas darteed ayaan u jeclaystay inaan idinla wadaago wixii aan isleeyahay dadka way ka faa'iidi doonaan badanaa markay ilmaha ka xanuunsadaan waxaa u baahan tahay reference ama qof aad dhahdid u laabatid marjaca u baahan tahay aad dhahdid aleelay qofkaas uu ka aroon yahay waxaas weydii maxay yihiin maxay noqon karaan markasta horta waxaa muhiim ah cunugaaga doo xanuunsada inaad dhakhtarka la wajahdid oo aadid cunuga dee qandho ka qabad qandhada ka jabisid haddii calool xanuunayso aa la tacaashid nadaafadiisa iyo wixiisa ay ilaalisid cuntadiisa ay ilaalisid muhiimada koowaad taas waaye markii oo markaas adii la tacaalid aa sameysay haddii markaas ay wax ka bedeli weyso inaa markaas dhakhtarka aadid marka maanta waxaan dhahay waxaa ka hadli rabaa H pylori wax la dhaho I'm sure waa maqasheen inta qofkii aan maqlina hadda ha barto H pylori waxaa la lahaa type of bacteria waaye oo jirkeena galo jirka ibni aadanka ayuu galaa badanaa ilmaha ayuu ku dhacaa H pylorigaas qofka jirkiisa markuu galane waa wax banaanka nooga yimaado markuu qofka jirkiisa oo galana hadhow wuxuu ku noolaadaa lahay dheefshiidka ibni aadanka dheefshiidka soo ugu nool yahana hadhow dhibaato ayuu u keeni karaa oo infection ayuu isku bedeli karaa calooshii ayuu dhibaato u keeni karaa wuxuuna isku bedelayaa ulcers wax la dhaho ulcers waxa waa gaas calooleed Soomaalida gaas calooleedka aad ay ugu badan tahay marka gaas calooleedkaas ayuu sababi karaa bakteeriyada gaas calooleedka keento waaye maxaa la dhahayay ulcer ama H pylori hadaa maqasheen soo H pylori maxaa la dhahayay waxaa lahayd qofka siduu uu xanuunjin karaa ama xanuun soo ku noqon karaa xanuun wuxuu ku noqon karaa qofka markii oo jirkaaga uu galo uu dago laga daaweyn waayo inuu calooshii xuubkii saarnaay oo maqaar shukumaanka caloosha saarneed inuu baabi'iyo markaas hadhow markay baabaadana caloosha difaaci yeelan weyso oo maxaa la dhahayay wax walba oo cuntid ay ku dhibaan kuleelka uu ku dhibo waxyaabaha maxaa la dhahayay spice-ka badan basbaaska badan inay ku dhibaan oo wax walba sensitive ah ku naqatid ayuu sababaya oo xuubka caloosha ayuu u baabi'iyaa ilaahay naga haayo waxaa kaloo lahay markii caloosha asas ay naqato hadhow hadii lagu daaweyn waayo oo cuntooyin khaldan mar walba cuntid inuu isku bedelo xataa kansar ilaahay nooma keeno marka H pylori dhakhaatiirtu waagi hore waxay u maleyn jireen lahay badanaa gaas calooleedka in laga qaado stresska badan ama qofka walwalka badan ama cuntooyinka oo xawaajiyada iyo basbaaska iyo waxaas laga buuxiyo dadka sigaarka cabo iyo nolol maalmeedka khaldan ina cuntooyin khaldan cuntid ina yani waxyaabo khaldan ina cuntid inay keento ay aaminsanayeen laakiin dadka oo khubarada caafimaadka ama khubarada oo science yahanada waxay ogaadeen H pylori waxaa la helay asaga dhanba la ogaaday 1982 waxayna ogaadeen germs waaye oo caloosha ku noolaado kaasoo hadhow ulcer isku bedelo haddii la daaweyn waayo marka sida idin sheegay markii H pylori calooshaada uu galo jirkaaga uu galo wuxuu attack gareeyaa ama uu baabi'iyaa caloosha xuubkeeda kaasoo markaas ka ilaalin jiray
aashitada cuntada ee soo saarto si oo calooshaada cuntada ee u burburiso macnaha qofka dheefshiidkiisa waxaa loogu talagalay cuntada markay gasho inay baabi'iso wixii nafaqo leh jirka uu qaato wixii wasaq eena uu bixiyo macnaha oo saxaro ee noqdaan iyo kaadi ee noqdaan Soomaan soo marka jirka wixii kala miiri lahaay markay cuntada gasho aashitadaas burburiso aashitadaas marka hadii calooshaada xuubka oo ka dhamaado way ku gubaysaa hadhowna caloosha boog ay u yeelaysaa ilaa qofka ay ku sababto xataa hadhow inuu dhiig ma tago ama dhiig oo saxaroodo oo aad ugu xanuunsado marka qofka hadhow marka calooshiisa inay baabaado xuubkeeda waxaa lagu ogaadaa waxyaabo badan H pylori naftirkiisana waxaa lagu ogaadaa baaritaano saxaro in qofka laga qaado ama in dhiig laga qaado hadii lagu ogaado inaan leedahayna waxaa lagu daaweeyaa antibiotics iyo daawooyinka gaaska maxaa la laba nooc oo antibiotic iyo hal daawo oo gaas dhakhtarka inuu ku soo qoro kabacdi marka daawada qaadatid oo 2 isbuuc soconayso badanaa 2 isbuuc lagu daaweeyaa qofka H pylori markii laga sheego marka hadii markaas oo lacala gaas oo kugu naqdayo calooshaadi damage badan oo gaaro dhibaato ee gaarto maxaa la dhahaa dhakhtar daawo fiican oo baahanta waxa kale oo loo baahan yahay in baaritaano badan lagu sameeyo oo endoscopy waxa la dhahaa jiro camera waxa jirto dhuunta qofka in la geliyo ilaa caloosha gudaha aga soo fiirinayso hadii oo gudaha inflammation oo ka jiro caabuq oo ka jiro caloosha hadii oo dhibaato ay gaartay dhibaatada ku gaartay intee la eg tahay markaas ka bacdi hadhow jirka waxa laga soo qaadaa dhacaan yar oo gudaha si loo baaro waxaan inay kansar isku bedeleen ama inuu ulcerki oo xumaadale oo yahay ka bacdi markaas dhakhtarka inuu ku siiyo daawooyin oona iska ilaalisid cuntooyinka dhibaatada ku keenaya qofka markuu gaaska ku dhaco waxa muhiim ah inuu iska ilaaliyo inuu cunto cuno oo culus oo ku seexdo ama cuntooyinka spice ka badan oo xawaajiyada badan inuu cuno inuu iska ilaaliyo marka waxyaabahaas ayaa keeno H pylorigana badanaa waxa la dhahaa ilmaha ayuu aad ugu dhacaa oo waqtiyada childhoodka ilmaha intay yar yihiin ayuu ku dhacaa dadka waaweyn wuu ku dhici karaa H pylori ahaan markii la dhaho jeermiska jirkaaga ilmaha badanaa intay yar yihiin ayuu galaa marka waxa muhiim in laga daaweeyo waxa kale oo iskaga ilaalin kartaa H pylori inuu dadka ku faafo ama jirka cunuga oo galo nadaafad in lagu dadaalo ilmaha in gacmo dhaq la baro mar walba gacmaha laga dhaqo musqusha markay isticmaalaan banaanka ka imaadaan soo ciyaaraan gacmaha saabuun looga dhaqo marka cunuga musqusha kasoo baxay marka musqusha kasoo baxay cuntada markay karinayso hooyada inay gacmaheeda nadiifiso maxaa la weelashii cuntada lagu cunayo la nadiifiyo cuntooyinka la cunayo in aad loo kariyo cuntada oo si fiican loo karinin xataa waa laga qaadaa oo hilibka si fiican loo karinin ama cuntada dabka inta la saaro isla markii laga dejiyo waa laga qaadaa marka dhaqaatiirta badanaa waxaa la ma cadeynin sababta H pylori ulcer iskugu bedelo markuu infection uu noqdo marka calaamadaha ulcerkana maxaa kamid qofka gaas haayo markii loo maxaa calaamada waxa uu qofka inuu isku arko dibiriyo tira badan inuu daacsi badan isku arko oo zaid u daacdo qofka inuu gaajo aysan qabaneynin qofka inuu lalabad dareemo matag ayuu leeyahay gaaska markuu yani H pyloriga uu kugu weynaado oo hadhow oo ulcer isku bedelay calaamadaha ay helaysid waa waxaan hadda sheegayo waxaan ku dhahay dibiriyo iyo daaca badan inaad baahi aad dareemin inaad larbootid matag inaad leedahay qofka inuu weightkiisa uu dhumiyo yani oo qofka miisaankiisa uu yaraado maxaa la dhahay hadii ulcerka uu aad u xumaado oo sababo yani wuxuu keeni karaa khatar aad u badan inuu caloosha dhiig oo yeelato oo hadhowna khatar naftaada gelin karto marka waxaa degdeg inaad dhakhtar u tagtid ay tahay lacala hadaa saxaradaada dhiig ku aragtid hadii neefta ay kugu cishoomayso aad aragtid in naqs kugu cishoomayo warwareer hadaa dareemtid ama inaad soo xiribto camal aad dareemtid hadii daal zaid fara badan aad dareemaysid sabab la'aan adoon wax qabanin hadana daalan tahay maqaarkaaga haduu kalarkiisa uu isbedelay oo qof dhiig yari haysa camal hadaa naqatay hadii dhiig ama tagtay ama wax oo u eg sida qaxwada u eg hadaa ma tagtid waa khasab emergency inaad dhakhtar aad tagtid xanuun aad u daran oo very sharp caloosha inaad ka dareentid waxyaabahaas waa kuwa khatarta zaa'idka oo gaaska markuu xoog kugu dilaaco oo kugu xumaado ee tahay inaa maxaa la dhahay dhakhtar isla markii aadid maxaa la dhahay marka waxaa la dhahay H pyloriga يعني بدنا ما بدنا إنه كانسر وكانه لكن وين على لعل هادو جاس كأد كوجو حماده مركو حلا وحيابها وكاني كرو
ama markuu aad u xumaado lacala inuu kansar qofka looga shakiyo ku dhacane calaamadaha laga arko qofka waxaa kamid ah inuu caloosha aad ay qofka u xanuunto, inuu calooshiisa ay bararto, inuu qofka matag joogto ah yeeshto, inuusan gaajo dareemin, inuu mar walbo dhereg uu dareemo waxyar hadaa cunto xataa isla marka qofka dhereg uu dareemo matag haduu leeyahay qofka inuu miisaan badan aad u dhuminayo waxaa laga yaabaa qofkaas inuu kansar isku bedelay. marka maxaa la dhahay dhakhtarkaaga hadii oo marka aad u tagtid see diagnosis loo sameyn karaa ama cudurkan see loo ogaan karaa inuu ku haayo see loo ogaan karaa. dhakhtarka markaas baaritaano kuu soo diraya in saxaro qofka laga qaado ama dhiig laga qaado hadii qofka markaas oo calooshiisa damage badan gaar leesdo ama qof dhiig matag oo ahayn in loo diro endoscopy sida hore u sheegay oo la geliyo tubadii bahashi oo kaamirada ku xirneed si loo soo ogaado. marka maxaa la dhahayay intaas waaye ilaahay horta kuley hanaga haayo gaaska Soomaalida hadda aad ugu badan yahay waxaana keena badanaa aniga ogahay lifestyle ka khaldan cuntooyinka badanaa cuneen anaga badanaa cuntooyinka carbohydrates u badan oo cuntooyinka nafaqada leh iyo cagaarka iyo waxyaabaha fruitska ma cunno cunto badan oo heavy hal mar la cunaa waa la iska jiifanayaa nadaafada waa iska yar tahay badanaa Soomaalida kuma baraarugsano. marka waxaan rajeynayaa inaa at least wax un oo fikrad ah ka hesheen H pylori idin sheegeen waxaa lagu daaweeyaa 2 nooc oo antibiotic iyo hal nooc oo hal kiniini oo kuwa gaaska sida kuwa omeprazolka iyo lahaayo iyo 2 antibiotic oo kala duwan ayaa la isticmaalaa treatmentigiisana wuxuu socdaa 14 maalin. marka maxaa la dhahay waxaan rajeynayaa inaa fahanteen aad u mahadsantihiin soo dhawaada asxaabta gadaal nooga soo biirto way mahadsan yihiin soo dhawaada leenahay kuwa cusubna kuwii hore noola joogna aad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayr. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.